xilliga jilaalka ama qaboobaha inta u dhaxaysa December 25keeda waxay dadka u dabaaldegaan waa labada xilli ee sanadka ay qoraxdu ka fog tahay dhulbaraha oo ay maalintu dheeraato ama ay yaraato haddase waxaan ka hadlaynaa xilliga cadceedda ay yaraato ama maalinta ay yaraato xilliga qaboobaha waxay ku aadan tahay 21ka December ilaa laga gaarayo 6 Janaayo ama ilaa dhamaadka February xilligaasi wax iftiin ah oo badan ma jiro markaad fiiriso dalalka qaar 24 sac waa gudcur madow sidaas darteed xilligaasi ayay doorteen inay xusaan Christmaska ama ay isugu soo baxaan bal qiyaas haddaad ku nooshahay Alaska ama Canada ama Norway oo aadan haysan kuleeliyaha gaaska ku shaqeeya banaankana uu qabow daran ka dhacayo hareerahaaga oo dhanna uu yahay gudcur ama madow daran dadku waxay u dhimanayaan cudurro iyo qabow daran waa xilli aad u daran oo qoys waliba uu luminayo qof yacni nafta ka baxayso ayagoo og in uu qof uun geeriyoon doono middaasi oo sabab u ah qabow iyo cudurro daran oo jira waa inta lagu guda jiro xilliga jilaalka ama qaboobaha laakiin markii ay cadceedda soo baxdo dadku waxay aaminsan yihiin in cadceedda nolol badbaado ah ay siinayso markii xilligaasi la soo guda galo dadku waxay sameynayaan xaflado kala duwan middaasi oo inta badan lagu qabto wadamada waqooyiga Yurub dhaca sida Iceland, Ireland, UK, jasiiradda Faroe Island, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Estonia, Latvia iyo Lithuania laakiin waqooyiga fog ee Yurub waxa laga waliimaystaa 12 cisho oo isxiga middaasi oo ka bilaabanta 25ka December ilaa 6 Janaayo ama January sida uu qof waliba u garanayo sidaasi oo kale dhaqankii hore ee Giriigga waxa jiray wax lagu magacaabo Bacchanalia midkaasi oo lagu weyneynayo waxay alle ku magacaabeen ama ay u aaminsan yihiin oo lagu magacaabo Bacchus allaha qamrada iyo isboortiga iyo qoobka ciyaarka subxaanallah halka Roomaankan ay leeyihiin eeba kale oo lagu magacaabo Saturnalia waa eebaha lagu magacaabo Saturn waa eebaha ugu sareeya eebaha cadceedda ama Saturn sidaasi darteed xilliyadaasi waxaad arkaysaa dadka oo sameynaya isku soo bax balaaran xaflado kala duwan waxay gubayaan geedo maxaa yeelay iftiinka dabka ah wuxuu matalayaa iftiinka dabiiciga ah maxaa yeelay 24 saacba waa gudcur ama maalintii badankeeda waxay noqonaysaa madow ama gudcur laakiin dabka muhiim gaar ah ayuu leeyahay iyaga maxaa yeelay iyagu waxay aaminsan yihiin in iftiinka ama ilayska ka soo baxaya dabka inuu nolol siinayo ama uu badbaadinayo sidaasi oo kale waqooyiga Yurub waxay mar sii horeysa ogaadeen in hal geed uu jiro geedkaasi oo xitaa xilliga qaboobaha aan dhiman maxaa yeelay xilliga qaboobaha soo galayo Yurub guud ahaanteed way caleemo daadshaan geedaha ama way caleemo dhacaan waa geed weligiisa cagaar ah ama akhdar ah oo aanan wax isbeddel ah ku dhicin waxay ku magacaabaan fir tree ama Christmas tree sidaasi darteed meelaha qaar geedkaasi waa la soo jaraa ayagoo aaminsan in geedkaasi uu yahay mid nolosha u badbaadinaya waxay dhigtaan guryaha ayagoo halka sare leer iftiimaya ka saaraya ama halka sare dab ku qabanaya ama waxay ka dhigaan sida xirsixir oo kale ayagoo suraya guriga albaabkiisa ama waxay xirsixirkaasi surayaan aqalka gudihiisa waxay u aaminsan yihiin xirsixirkaasi inuu ka badbaadinayo dhibaatada xilliga jilaalka ama qabowga daran uu dhacayo haddaba waxaad ogaataa in geedkaasi Christmas tree-ga ah ay ku magacaabeen in uu yahay badbaadiye haddaba dabaaldegyadaasi ay soo samayn jireen waxay soo martay heerar kala duwan oo markii dambe si casriyeysan dadka ay ugu soo bandhigeen middaasi oo boqolaal sano soo socotay sidaasi oo kale wadamada waqooyiga Yurub dhaca waxay isugu soo baxaan iyagoo isku hareereynaya geedka fig tree ama geedka Christmaska ayagoo si wada jir ah geedka dhexda u dhiganaya laakiin waxaa jirta arrin sir ah middaasi oo dadka badankiisa aysan ka warqabin waxaa jirta inay leeyihiin firqooyin kala duwan middaasi oo ku fiday wadamada dhaca waqooyiga fog ee Yurub waa sida Giriigga oo kale hal arrin oo si gaar ah in loo eego u baahan ayaa jirta haddaad doonto waad ka eegi kartaa qaamuusyada ama buugaagta loo yaqaano encyclopedia waxaa jira nin lagu magacaabo Mithra ama Mithras arrintaasi waa mid cajiib ah oo qof waliba uusan fahmi karin markaad eegdo taariikhda waxaad arkaysaa nin lagu magacaabo Mithra inuu dhashay 25kii bishii December
maalintii uu dhashay isbuuca waa maalinta toddobaad ee isbuuca middaasi oo weli ay garanayaan ama aan u naqaano innagaba guud ahaanteen Sunday maalinta cadceedda waxay dhahaan waxay ahayd inuu isaga ahaado cadceed ama cadceeddii alle oo ay ugu yeeri jireen waxayna leeyihiin xaflado gaar ah ay sameeyaan kuwa qaatay diimaha lagu magacaabo Roman Catholic ama Orthodox-ka waxay sameeyaan rooti iyo qamro waxay rootigaasi iyo qamradaasi xilligaasi cunayaan una cabayaan si daran gaar ahaan xilliga 25 Diseembar waxayna dhahaan ninkaasi wuxuu u geeriyooday dambiyada aynu inaga galnay warkaasi ma cad yahay mise waxba idinkugu dhiman ama idinkugu daraa laakiin markaad isku daydo inaad ka hesho encyclopedia magaca Mithra ama Mithras waxaad dareemaysaa inay wax ka bedeleen waxay masaxeen magaca maxay sidaasi u yeeleen maxaa yeelay nabi ciise kadib calayhi salaatu wasalaam markii diinta ama risaalada ay faaftay ama fidaysay waxay iyaga kirishtaanka ah soo aadeen waqooyiga Yurub waxaad arkaysaa taariikhda qoran nin lagu magacaabo Barnabas ninkaasi xirtiisa mid ka mid ahaa wuxuu la kulmay nin lagu magacaabi jiray Saul ama Paul xilli dambe ayay u bixiyeen Paul wuxuu yiri waxaan arkay nabi ciise calayhi salaatu wasalaam kuna arkay wadooyinka Dimashq ee Suuriya ah Paul wuxuu u yimid xirtii laakiin xirtii Paul way ka soo horjeesteen Barnabas oo kaliya ayaa isaga la joogay oo xirtiisii ka soo haray laakiin markii Paul iyo Barnabas ay tageen wadanka Greega Barnabas wuu ka tagay Paul waa maxay sababta dhamaantood ay ugu kala carareen Paul waa maxay fikirka Paul u ximbaarsanaa dadka badankood waxay dhahayaan waxay ugu kala tageen ama ay ugu kala carareen waxa weeye maxaa yeelay wuxuu ahaa wiil asalkiisa ah Yuhuud sidaasi oo kale iyaga si xun u silacdili jiray gaar ahaan kuwii hore ee u raacay nabi ciise calayhi salaatu wasalaam diintiisa si aan arintaasi u ogaano waxaad arki kartaa oo weli taariikhda qoran ama kuwa raadkooda sii muuqdo oo aad ka dheehan kartaa kirishtaanka in si xun loo jirdili jiray tusaale Romankii hore ama Greegii hore waxaad arki kartaa in maanta daaro ay dalxiisayaalka tagaan waa daaro aad u waaweyn waa dhismo aad u waaweyn meeshaasi waxaa la isugu keenin jiray laba nin oo dagaalyahano ah markii labadaas nin midkood dhulka la dhigo midka taagan wuxuu eegayaa boqorka isaga oo weydiinaya ma dilaa mise waa iska dhaafaa haddii uu boqorka doonayo in la dilo wuxuu suulka gacanta u jeedinayaa halka hoose haddii uu doonayo in la dhaafana suulka wuxuu u jeedinayaa xagga sare waynu adeegsanaa soo ma ahan maanta dabcan haa waxyaabaha ugu xun ee ugu foosha daran ee xilligan qabuubaha ama maalmahan oo kale dhici jiray waxay ahayd caado xun ay qabeen Romankii hore ama Greega meelaha fagaaraha ee la isugu yimaado ay ku samayn jireen gaar ahaan waa goobaha afka qalaad lagu yiraahdo Colosseum waxay isugu soo ururin jireen dadka kirishtaanka ah rag iyo dumar iyo xitaa caruurba waxba uma kala socneen waxay siin jireen dadkaasi hilibkooda iyaga oo nool duurjoogta gaajaysan waxay siin jireen dhurwaayada libaxyada ama yeyda gaajaysan oo si xun loo jirdilay kuwaasi cara ay ka muuqato kadibna waxaa lagu dayn jiray dugaagtaasi dadka kirishtaanka ay goobtaasi la keenay kadibna dadka goobtaasi isugu soo baxay waxay u sacbinayaan sida libaxyada ay u feenanayaan dadkaasi ayaga oo nool middaasi waa dhaqan xun soo maahan haddaba aan u soo daadagno ujeedkeenna ama mawduuceenna waxaa marka koowaad ogsoonnahay in nabi ciise calayhi salaatu wasalaam markaan eegno warbixinno ama taariikho kala duwan ama taariikhyahanada kala duwan sida ay ka soo wariyeen ama diimaha badankooda waxay sheegayaan inuusan ku dhalan nabi ciise calayhi salaatu wasalaam cimilo qabow taariikhdu waxayna tusaysaa inuu ku dhashay cimilo kulayl ah qisada ku xusan quraanka kariimka ah markaan eegno halka lagu xusay suuradda 19aad aayadda 24aad ilaa 25aad markaan si fiican u eegno qisada uu alla weyne ku xusay quraanka ku saabsan Maryama nabi ciise hooyadii in Maryama Allah u naxariistay inay ahayd bikro aan horay u galmoon ama ugub ah ama urdun ah sida qof waliba u garanayo waxayna waqtigeedii oo dhan ay ku bixisay inay cibaadaysato oo alla ay weynayso ayadoo dukan jirtay isla markaana alla u soomi jirtay awoodda alla weyne subxaanahu wa ta'aala abuuraha uunka oo dhan wuxuu ku afuufay ruuxdiisa kadibna waxay qaaday uurkii nabi ciise calayhi salaatu wasalaam
isaga oo ku yiri oo kaliya ahaw sidaana ku noqday ciisana calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay aabba la'aan taasina waa arrinta ay rumaysan yihiin muslimiinta guud ahaanba maxaa yeelay kitaabka quraanka ayaa inoo sheegaya sidaasi oo kale waxaynu rumaysannahay markii ay dareentay xanuunka ama foosha xanuunkeeda waxaa u yimid malag iyada oo meel fadhida isla markaana u sheegay inay ka baxdo magaalada markaana degto meel bannaanka ka ah magaalada ay joogtay gaar ahaan meel iyada loo asteeyey ama loo calaamadeeyey kadibna waxay halkaasi ka heshay geed timir ah kadibna waxay heshay biyo waxay sidaasi oo kale heshay timirta nuuca loo yaqaano rutubka tusaale qofka meelaha saxaraha ku nool oo si fiican u garanaya marka ay timirta bislaato waa xilliga timirta midabkeeda uu isbedelo maxaa yeelay timirtu ma aha mid buni ah midab ahaan isku soo duubo xilligaasi ayuu dhashay nebi ciise calayhi salaatu wasalaam waxaynu ognahay sidaasi oo kale inaysan timirta ku bixin dhul qabow ah waxay ku baxdaa dhul kuleyl ah oo keliya haddaba taariikhda kala duwan iyo diimaha kala duwan waxay dhammaan sugayaan in nebi ciise calayhi salaatu wasalaam uusan dhalan xilli qabooba ah ama xilli jilaal ah wuxuu ku dhashay meel hawadeeda aad u kulushahay haddaba waa kuma kan ay xusaan kirishtaanka midkaasi oo dhashay xilliga qaboobaha haddaba waa midkee qofka tilmaamahaasi kirishtaanka leh haddaba aynu isku diyaarinno inaan noqonno dad dabagal ku samaynaya barnaamijkani si aan u xallinno dhibaatada taagan si aan jawaab saafi ah u helno marka koowaad waxaa muhiim ah inaad fahanto fikradda ku saabsan satan fikradda baakas markay sawir-gacmeed samaynayaan ama markay inta badan samaynayaan dhagaxaan sida sanabka oo kale ah waxaad arkaysaa nin culus oo meel fadhiya midkaasi oo garcad leh haddaba markaan eegno sawir-gacmeedyadii uu samayn jiray nin lagu magacaabi jiray mike angelo waa farshaxaniiste u dhashay dalkaasi talyaaniga waxaad arkaysaa inuu sawiri jiray nin gar dheer leh oo garka midabkiisu uu cad yahay shaarbo afka daboolaya midkaasi oo saaran gawaarida barafka laga furo midkaasi oo sawiraya mas weyn oo garba lagu duulo leh waa mas garba leh masaska sidaan la soconno sida caadiga ah ma duulaan laakiin ninka saaran gaarigaasi barafka laga fuulo ayaa waxa uu sawiray xayawaanaad duulaya waad la yaabantihiin soomaha sheekada nuucaani ah soo sidaasi maaha dhammaantiin wuxuu ninkaasi dadka isaga dhigi jiray nin mucjisooyin hor leh la yimid dadka wuxuu tusinayaa sawir-gacmeedyo masas duulaya iyo xayawaanaad kale oo hawada sare maraya ninkaasi wuxuu soo bixi jiray 25 Disembar middaasi oo aan ahayn xilligii uu dhashay nebi ciise calayhi salaatu wasalaam iyo weliba mid aysan ka warqabin dadka kirishtaanka diinta rasmiga haysta laakiin waxaa la soo abuuray sheekadaani xilligii bakanaaliya ama xilligii satarnaaliya wuxuu samayn jiray ninkani isku soo bax dadka isugu yimaada si dabaaldeg ah wuxuu cabi jiray qamro badan oo maanka doorinaysa haddaba maxaa dhacaya xilliga Kirismaska gaar ahaan Mareykanka gudihiisa ama wadamada Yurub guud ahaanba bal u fiirso dadka marnaba kuma fikirayaan wax ku saabsan Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam xitaa iyagoo qamrada cabaya waxay ku fikirayaan oo kaliya sida ay u cabi lahaayeen qamradaasi haddaba waa maxay waxa socda wadamada Karibiyaanka badankooda markay ku soo taagaan keeg ama doolsho iska eeg markii cad yar ay ku soo taagaan oo keeg ah waxay inta badan ku daraan ama qamrada loo yaqaano ram maxaa yeelay waa wax iyaga jeebkooda ay kala yimaadeen haddaba waxaynu maqalnaa magaca ah Saint Nicholas laf ahaantiisa waxaa keenay dadkii hore kuwaasi oo qoraalo been ah ka sameeyey gaar ahaan wadamada Scandinavianka waxaad maqlaysaa magaca ah Nick ama Nickel ama Nicker laakiin guud ahaan waxaa loo yaqaanay dadcunkii waqooyiga waxaa loo yaqiinay shaydaankii ruuxaanta ahaa waxaana si gaar ah loogu yaqiinay waqooyiga Yurub gaar ahaan magaca Odin allihii dib u soo laabtay sidaasi darteed dalka Jarmalka guud ahaan ama wadamada waqooyiga dhaca waxay dadka marar qaar ugu yeeraan Saint Nick waxay carruurta u sheegaan xilliga qaboobaha ah ama jilaalka inaysan banaanka u bixin haddii ay banaanka u baxaanna inuu qaadan doono Nicholas isla markaana qabsan doono kuna ridan doono jawaankiisa haddaan eegno kitaabka Ashyaa ama Ashyaa oo waxa ka haray Baybalka cutubka 14 shaydaankii loo yaqaanay ruuxaanta madow in kursigiisii loo tuuray dhankaasi waqooyiga meel ka mid ah waqooyiga waa kursiga uu ku fadhiisto shaydaankaasi sidaasi oo kale
jarmalka waxay ku magacaabaan markay sawirkiisa qeexayaan ninkani lagu magacaabo Nicholas ama Bells Nicholas waxay dhahaan jarmalka Bells Nicholas macnaha afka jarmalka waa shaydaankii dhagorta lahaa marka ay sawirayaan waxay sawiraan nin xiran dhagor cas oo qabowgu isaga celiyo xaruntiisana waxay ahayd waqooyiga Yurub kaniisadda England ilaa laga soo gaaro 1647 waxay bilowday inay dabaaldegyadaasi ay sii socon karin sidaas darteed waxay keeneen xafladda Christmaska sidaas darteed waxaan arkaynaa xafladaha Christmaska inay tahay xilliga shaydaanka waxay aaminsan yihiin inay tahay rumayn la rumeeyo Saturnalia iyo Bacchanal sidaas darteed waxay u bedeleen xafladii New Year Eve waxay u bedeleen dareenkoodii iyo farxadoodii sidaas oo kale shaydaankoodii wuxuu u bedelay New Year Eve haddaba intaan soo gabagabayn mowduuceena aan Christmaska u laabano maxaa dhacaya xilliga Christmaska aan eegno waqooyiga Yurub oo kaliya waxay banaanka iyo goobaha la isugu yimaado ku sharaxaan leerar iyo waxay ugu yeeraan Santa Claus oo saaran faras ama deero qof waliba wuxuu ku sheegayaa Saint Nicholas caruurta fuqarada ah waxay aaminsan yihiin in Nicholas uu soo degayo uu hadiyo siinayo iyaga laakiin marka runta eegno dadka garanaya 300 ama in ka badan oo 300 oo qofood ayaa soo baxaya oo soo xiranaya dharka cas kadibna waxay soo qaadanayaan hadiyado kala duwan kadibna waxay tagayaan dhammaan goobaha u dhow iyo xaafadaha kala duwan kadibna waxay dhigayaan hadiyado guri kasta hortiisa iyo geed waliba ay surayaan hadiyadaasi dadkana waxaa loogu sheekaynayaa inay hawada sare u duuleen dadkaasi sidaas darteed waxay ku sheegayaan in raggaasi hadiyadaha keenay inay xagga sare qabteen maanta dadka noocaasi aaminsan way sii badanayaan laakiin markaad iyaga weydiiso waxay ku dhahayaan hagaag waad og tahay waa Christmas miyaadan doonayn in carruurta ay faraxsanaato ma waxaad ka hor istaagaysaa carruurta inay farxad ku noolaadaan haddaba dadka noocaasi waa sidee war ma waxaad carruurta baraysaa waxaad adeegsanaysaa magaca Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaad sheekadaadii ku daraysaa sheeko shaydaan oo la sameeyay waa shaydaanka dhabta ah Christmaska micnihiisa hadda waa aalad lagu ciyaaro waa inaad hadiyado u soo iibiso qaraabadaada iyo dadka eheladaada ah ugu yaraan 34 hadiyadood waa inaad soo diyaarisaa markaad eegto dadkaasi badankooda Christmaska marka laga baxo dhammaantood 6 bilood ayay sii qaamaysan yihiin oo lacag deyn ah lagu leeyahay haddaba aaway Jesus Nabi Ciise aaway ma in la cabaa qamrada ma in la isdagaalamiya ma in lacagta la qasaariya dukaamada sicirkooda xilligaani aad ayaa hoos loo dhigaa war dhaqankani ma ahan mid laga keenay Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam Nabi Ciise wuxuu ahaa qof cagacad inta badan kaba ma uusan xirin jirin bal iska dhaafay 2 maro ayuu isku bedelan jiray cunto aad u fudud ayuu cuni jiray in badanna wuu soomi jiray sidaas darteed ciidahani ciida Christmaska ah waa ciida shaydaanka waa ciid ay jeebkooda kala soo baxeen sidaas darteed ha ku sirmin oo ka fogow haddaad iyaga weydiiso kuma sheegi karaan waa maxay ciida Christmaska haddaad tiraahdo kuma sheegi karaan sidaas darteed walaal ka fiirso waxa aad sameynayso والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته